waxay ku qaadatay kaliya hal ilbiriqsi in dalxiiskooda quruxda badnaa uu isku bedelay jahwareer iyo badbaado. markii yaxaas xajmi weyn uu jabiyey doontoodii, badbaadadu ma ahayn dooq, waxay ahayd waqti kooban oo sii dhammaanaya. waxay si toosa u taagan yihiin dhexbartamaha iyo guriga ugaarsadaha. goobta ay joogaan wax anteenaa ma lahan, raadiyihiina uu ka gubtay, waxaana ka sii daran in daqiiqad walba ay buuxsami karto jasiiraddan. waxaad haysataa 2 doorasho: inaad webiga dhex martid oo aad gaartay cidhifka webiga si aad xor u noqotid, iyo in aad sugtid caawimaad aadan ogeyn xilliga ay imaanayso. waa 2 daron mid dooro. haddii aad joogto intee in leeg ayaa sugi kartaa gargaar aadan hubin xilliga uu imaanayo. haddii aad biyaha cagta dhex dhigtana waxaad noqonaysaa cashada xigta ee yaxaaska. bal adigu maxaad samayn lahayd? بيتر oo saxaafi safarada ka qora sheekooyin ayaa imaanaya waqooyiga Australia si uu muuqaal uga qoro yaxaasyada waaweyn ee caanka ku ah aagaas. wuxuu ku biirayaa koox dalxiisayaal oo ay hogaaminayso Katie oo ah kabtanka doonta, sidoo kalena waxay wadataa eeygeeda kaas oo ay safar walba u kaxaysato. safarku wuxuu ku bilowday jawi farxad iyo reereyn ah, iyadoo rakaabka ay sawir ka qaadanayaan muuqaalada quruxda badan iyo yaxaasyada biyaha ka soo boodboodaya. Katie ayaa u sharaxaysa kooxda in yaxaasyada biyaha cusbada leh ee aagan ku nool ay yihiin kuwa ugu caqliga iyo khatarta badan dunida, miisaankooduna uu gaari karo ilaa 2 tan. kadib Peter wuxuu ag fariisanayaa Katie si uu la sheekaysto, wuxuuna isku barayaa inuu yahay saxaafi safarada ka qora sheekooyin oo ka yimid Chicago. Katie waxay la wadaagaysaa inay halkan ku dhalatay laguna soo koriyay oo aysan weligeed ka tagin gobolkan, halkaas ayayna isku baranayaan labadooda. markii ay doontu si qoto dheer u gashay webiga, 2 dhalinyaro ah ayaa soo muuqanaya, Neil iyo saaxiibkiis, kuwaas oo u muuqda inay yihiin dadka deegaanka. maadaama ay isgaranayaan Katie, waxay doonta ka xireen jidka waxayna bilaabeen inay dhibaateeyaan dalxiisayaasha, taasi oo ka caraysiisay qayb ka mid ah dalxiisayaasha. Katie waxay si adag ugu sheegtay inay shaqo ku jirto oo aysan dhimin, waxayna ka codsatay inay ka horwareegaan, laakiin way ku madax adeegeen inay ka wareegaan iyagoo ku kaftamay. Katie dib uma aysan guran, waxay si lama filaan ah dhaqaajisay doonta, taasoo ka naxisay Neil saaxiibkiis, wuxuuna lumiyay maamulka doonta, taasi oo sababtay in Neil uu ku dhaco webiga. socod dheer kadib, safarku wuxuu qarka u saarnaa inuu dhammaado kadib markii ay si lama filaan cirka uga arkeen calaamad muujinaysa dad dhibaataysan, midaas oo ahay mid aad u fog. inkastoo rakaabka qaar ay ka soo horjeestay inay aadaan, haddana Katie waxay go'aansatay inay u leexisay doonta dhinaca calaamadu ka muuqato si ay u caawiso qof kasta oo dhibaataysan. halkan ayuuna ka khaldamay safarkoodii. daqiiqada kadib waxay soo galeen dhul go'doon ah oo aysan gelin dadka deegaanka, waxayna ka aaminsan yihiin in dhulkan uu yahay dhul habaaran, kaasoo aan bannaanayn in la galo. halkaas waxay ugu dambeyntii ku arkeen doon yar oo rugmatay, laakiin ka hor inta aysan fahmin waxa ka dhacay meeshan, wax aad u weyn ayaa ku dhacay doontoodii, waxayna sababtay in doontu ay duleeshanto. Katie waxay ku guulaysatay in doonta ay ku damiso jasiirad yar oo webiga ku dhex taala. dadku waxay iskugu yimaadeen jasiiradda, taasi oo dhinac walba webigu ka xigo. meeshu internet ma laha, raadiyihiina uu ka qoyay, sidaa darteed ma jirto wax ay kula xiriiri lahaayeen dadkii magaalada joogay. waxaa ka sii daran hirka biyaha ayaa bilaabay inay kor u kacaan, taasi oo la micnaha in jasiiraddan yar ay quusi doonto dhowaan. isla markiiba ninkan ayaa go'aan qaatay, wuxuuna aaminsan yahay haddii uu dubaasho oo uu gaaro webiga cirifkiisa xiga inuu xor noqonayo. laakiin nin kale ayaa qabtay, isagoo u sheegaya in ay biyuhu khatar yihiin, wax walba oo doonta jibina ay biyaha ku jiraan, sidaa darteed uusan biyaha geli karin. kadib markii ay ku qanciyeen ninka inuusan biyaha geli karin, ninkii kale oo biyaha agtooda weli taagan ayaa yaxaaska qaadanaya. waxa kaliya ay arkayaan wuxuu ahaa yaxaaska dabadiisa. hadda waxay ogaadeen inta ay la egtahay biyaha khatartooda iyo inay si dhab ah u joogaan guriga yaxaaska. badbaadada kaliya ay haystaan ay tahay inay ka fogaadaan biyaha. wax yar kadib waxaa soo muuqanaya 2 dhalinyarada ahayd, Nicky iyo saaxiibkiis, kuwaasoo horay u dhibaateeyay dalxiisayaasha. waxay bilaabeen inay ku jeesjeesaan dalxiisayaasha, inkastoo ay ku qeyliyeen oo ay u sheegeen khatarta ay ku jiraan. nasiib xumo sameecad ayaa u shidan, sidaa darteed ma maqlayaan dadka waxa ay sheegayaan. kadib markii ay fahmeen waxa doonta dalxiisayaasha ku dhacay, yaxaasku Charles Mason ay ku caawiyaan dadkan ama ay ku badbaadiyaan naftooda. markii ay doontii rugmatay, Neil saaxiibkiis wuxuu ku dhex dhumay biyaha, taasi oo muujinaysa in uu mar hore galay caloosha yaxaaska, halka Neil uu ku guulaystay inuu u dubaasho jasiiradda. habeenkii markii la gaaray, Neil wuxuu soo jeediyey fikrad waali ah, isagoo u sheegaya in xilligan kale yaxaasku seexdo, sidaa darteed ay tahay hadda in ay biyaha dhex mari karaan iyagoo aamusan. sidoo kale wuxuu u sheegayaa inay xariga ku xireen geedka ku dhex yaala jasiiradda si uu afkiisa ugu xiro webiga dhankiisa kale. laakiin Katie kuma aysan qancin qorshihiisa khatarta badan. si kastaba ha ahaatee, Neil wuxuu go'aansaday inuu dhex maro biyaha, wuxuuna bilaabay inuu dubaasho isagoo aan sharqan samaynayn. wuxuu ku guulaystay inuu webiga cirifkiisa tago, wuxuuna ku xiray xariga geed adag si qof walba uu xarigan u soo raaco. gabadhan oo aad u cabsanaysay ayaa loogu hormariyay si ay u gudubto. nasiib xumo markii ay marayso bartamaha biyaha ayay waxay bilowday inay cabsato, sidaa darteed horeyna way u socon weyday, gadaalna way u soo noqon weyday. kadib nin odaya ayaa si waali ah u xanaaqay, isagoo leh gabadheeda iyo xaaskii halkan ku dhiman mahayaan. inkastoo ay isku dayeen inay qabtaan una sheegaan haddii xarigan 3 qof ay raacdo inuu go'aayo, laakiin ninkan cidna ma dhegeysa, wuxuuna bilaabay inuu la dagaalo dadka isagoo xoog u sheeganaya. kadib markii 4 qof ay iskugu tageen xariga, naagtiina ay dhaqaaqi la'dahay, ayaa yaxaasku wuxuu dib uga imaanaya Neil.
kayti oo dareentay in niil la cunay ayaa waxay u sheegaysaa in ay dib u soo noqdaan oo uu yaxaaskii soo noqday si kastaba ahaatee xarig ayaa la go'aya waxayna ku dhacayaan webiga dhexdiisa inkastoo ay jasiiradda soo gaareen haddana ninkii oo aad uga xum waxa dhacay kana raaligelinaya waxa uu sameeyey dadka ayaa yaxaaskii dib uga soo boodaya wuxuuna bilaabaya inuu dadka hortooda ku cuno kooxda intii soo hartay ayaa go'aansaday inay dabin u dhigaan yaxaaska si ay waqti ugu helaan inta uu dabinka ku jirana ay ka dubaashaan jasiiradda oo ay xor noqdaan laakiin su-aasha ah sidee dabin loogu dhigin maamadan ayaa arkaysa eyga kayti ay wadato waxayna soo jeedinaysaa in isaga dabin looga dhigo kayti ma ogolaanayso in eygeeda ay siiso yaxaas waxyar kadib ninkan ayaa qorsho keenaya wuxuuna soo qaadayaa shimbirihii ay wateen niil iyo saaxiibkiisa wuxuuna u sheegay in ay shimbirahan dabin uga dhigaan yaxaaska waxay ku xirayaan xargo iyo biro waxayna ku tuurayaan webiga Peter ayaa u sheegay inuu asagu hayn doono xarigga una sheegi doono marka uu yaxaasku dhaco daminka kayti ayaa uga tagaysa eygeeda waxayna u sheegaysaa inuu caawin doono maadaama uu eygu urinayo marka yaxaasku soo dhawaado qorshii waa shaqaynaya marka hore yaxaaskii daminka ayuu ku dhacaya waxaana qabsanaya birta ay ku xiran shimbiraha hilibkooda kadib dadku waxay bilaabayaan inay dubaashaan kayti ayaa sugaysa ilaa qof walba uu nabad uga baxo biyaha Peter wuxuu u sheegay inuu hayn la'yahay sidaa darteed ay dhaqsadaan dadkii markii ay ka baxeen biyaha kayti waxay bilaabaysaa inay si xawaarla biyaha ugu dubaalato nasiib darro xariggii daminka ayaa go'aya taasoo macnaheedu tahay in yaxaaskii ka badbaaday daminka Peter ayaa u sheegay in yaxaaskii uusan hayn ay si dhaqso ah biyaha uga baxaan inta aysan gaarin webiga dhankiisa kale yaxaaska ayaa helaya wuxuuna kula dhex quusiyaa biyaha Peter ayaa biyaha isku tuuraya si uu u badbaadiyo laakiin wuxuu helayaa keliya tooshkeedii isagoona quusan wuxuu bilaabaya in kooxda kale uu ka daba ordo Peter wuxuu ku dhexlumayaa keynta isagoo kaligiisa wuxuuna bilaabayaa inuu ku dhawaaqo magacyada kooxda la socotay si lama filaana eyga ayaa bilaabaya inuu ciyo wuxuuna u cararaya dhanka kooxda aadamahana dhinaca kale wuxuu isla markiiba ka qarsoomayaa Peter markii uu dabagalo eyga wuxuu ka maqlayaa codkiisa geed weyn oo qadiimi ah hoostiisa wuxuuna bilaabayaa inuu eego laakiin wuxuu ku siibanayaa godka halkaas oo ku dhex arkayo meedka Niil kadib markii uu gudaha u sii galay waxa yaab iyo fajax ku noqonaya kayti oo meesha taalla laakiin si baan ayay u dhaawacan tahay miyirkeeduna waa maqan yahay سلام فلان إيجا هذا نقول ده يقولك أفكيس البرغز كده بو آموسيا تاسي أو معناه ده تاي جحاسك إنه عني كده مركي جحاسك سوق بيتروح بلعبة إنه كرنت جحاسك إسقوا وتكيتي غير كده بحال تضوء إلى 6 متر أيها سوق اللي يقولك وحنا بلعبة إنه صح ما دام وأدرك سنة غير كده بيتروح وسكت إنه كيتي سي آموسن دبده وصاره laakiin xaaska ayaa ku toosay wuxuuna bilaabay inuu weeraro Peter wuxuu kayti gelinaya geedka salkiisa kaasi oo aad u xidid badnaa laakiin maaha xididadaas kuwa xaaska celinaya Peter wuxuu go'aansaday inuu meesha ka baxo si uu uga fogeeyo xaaska kayti markii uu banaanka u baxay xaaska ayaa siintiisa ku dhuftay kadib wuxuu qaatay qori dheer isagoo iskaga dhicinaya xaaska laakiin afka intuu ku qabtay qorigii ayuu Peter wuxuu ku tuuraya meel fog halka ugu mahrina wuxuu ka dabagelayaa meeshii Peter galay wuxuuna ka qaniinayaa faraha Peter markii uu xanuunsado wuxuu agtiisa ka helayaa laf wuxuuna isha uga dhufanayaa laftii yaxaaskii markii uu xanuunsaday wuu ka cararayaa wuxuuna u jeesanayaa dhanka kayti markii ay qufacdo laakiin xididada geedka ayaa xarnimaya Peter markii uu arko kayti oo khatar ku jirta wuxuu go'aansanayaa inuu naftiisa u horo kayti wuxuuna soo jeedinayaa yaxaaska isagoo qaadanaya qori fiiqan wuxuu isku tiirinayaa dhagaxyo waaweyn gadaashiisa isagoo iska hormarinaya qoriga yaxaaskii oo isla isaga iyo qorigaba isku cun ayaa si xoog leh ugu soo boodaya laakiin alwaax ayaa si toos ah u galaya madaxiisa halkaas ayuuna ku dhimanayaa bahalkiina wareeriyo dhamaanteen kadib Peter wuxuu ka soo dhaxbaxayaa bahalka afkiisa wuxuuna kayti u soo bixinayaa banaanka kadib markii subaxi ay noqotay isagoo aad u daalan ugu dambeyntii wuxuu la kulmayaa kooxdii kale halkaas oo gargaarka ugu imaanaya kayti oo daciif ah ayaa indhaha kala furaysa waxayna u mahadcelinaysaa Peter